xisbiga kulmiye oo maalintii labaad u lahaa ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland ayaa maanta soo bandhigay magaalada Laascaanood awoodiisa taageero ee shacabka waxaana fagaaraha khayriidda magaalada Laascaanood iyo shaariicada waaweyn lagu arkay boqolaal kamid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye kuwaas oo saaran gaadiidka waaweyn iyo kuwa yaryar waxaana maanta jawigu ahaa sidan taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ku labisan astaanta u gaarka xisbiga kulmiye iyo mas'uuliyiinta xisbiga ay madaxay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda ugu horeeyay wasiirka amuraha gudaha Soomaaliland wasiir dawlaha beeraha wasiir dawlaha warfaafinta xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga kulmiye ayaa la hadlay taageerayaasha xisbiga aanu ka soconaa waa xisbi waaye araga oo dalka soo xukumay muddo ka badan 7 sanadood marka koowaad waxa weeyaan aad iyo aad u mahadsantihiin dareenkiina muujiseen maxay ahayd aad iyo aad u xaraadeeysan xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga kulmiye ha guulaysto waxaa inoo ballan haddii alla idmo walaalayaal xisbiga kulmiye waa xisbigii cadaaladda iyo horumarka iyo midnimada wuxuu deegaanka ka qabtayna waa isla garanaynaa annagu ballanqaadkayagu waa laga dhabeeyaa markii berigii hore 2017 aanu halkan ka tartamanayna waxaanu ballan qaadnay waanu fulinay ku soo baxay xisbiga talada dalka ee kulmiye ha noolaado kulmiye ha noolaado kulmiye ha guulaysto daraawishay waxaynu dooranaynaa darwiish baynu dooranaynaa daraawishay waxaan jecelahay maanta waa laga dabaaldegayaa waxaan isleeyahay gobolka sool boqolkiiba 80 meelaha waynu helaynaa sanaag waa la mid waxa dad gobabaynu nahay abaalkaynu gudnaa xusbiga kanu waad ogtihiin abaalka uu dadkan ku leeyahay iyo deegaankan uu ku leeyahay muddadii yarayd ee 2 sannadood ahayd ee u dambaysay inta uu qabtay iyo heerka uu gaarsiiyey iyo isbeddelka iyo mustaqbalka uu inoo abuuray waad ogtihiin waxaynu ku darsannaa ayaynu berrinta ka maalin yeelanaynaa waa inaynu xisbigu waa guulaysanayaa wuu soo baxayaa waa la hubaa waxaana markii ay soo dhawaatay khudbadii laga soo jeediyay fagaaraha khayriidda ay socod iyo gaadiid ku mareen dhammaan shaariicada magaalada Laascaanood waa Farxaan Maxamed Aidiid TV-ga caalamiga Ariel magaalada Laascaanood